ciidan hubaysan oo hub haysto halka hortiisa airportkii qabsaday oo baarlamaankii doonaya inuu qabsado ayuu eeganay dhowr bilood bay socotay laakiin xaggan xisbiyada mucaaradka ragga sidaas samaynayana hal qof xataa oo iyaga ka mid xisbiyada mucaaradka xabsi ku jira ma jiro hal qof oo mudaharaadaya oo xataa xariijin la gaarsiiyey ma jiro waqtigii mandatekii madaxweynuhu muu dhammaan laakiin haddana weli way dagaalamayaan soo ma marka ciro waa nin jilicsan markay leeyihiin waxay uga jeedaa wuu nala dagaalami waaye wuu nala hadli waaye telefoonkiisaanu soo wacnayo wuu naga qaban waaye he's not gonna answer wuu naga baqayaa dadkiisii taageerayaashiisii baan hortiisa ku laynay staafkiisii baanu dilay laakiin xataa kelmad colaadeed warbaahinta noogu maray therefore waa nin jilicsan wey soo bedela warbar lama aragtan eega marka nimankan waa niman aad u nasiib badan anigu xusbiga wadani haddaan hogaamin lahaa ama iga tala qaadan lahaayeen maxaan samayn lahaa maalintaa mudaharaadkaa dadku iyagoon hubaysnayn la laayay next day next 12 hours waxaan ku diyaarin lahaa 10 qof ee mudaharaadaya in mid qori sito iyo rasaastiisa qofku meel walba wuu yaala qof waliba wuu haystaa anigu qorigii awowgay baan haystaa oo 1954 ibsaday xariisana allah ka waraabiya awowgay dagaalkiisa oo dhintay many years ago because hubku wuxuu ka mid yahay huga ragga ayuu ka mid yahay ku laafiyo ninka waa shaalkiisa wey waa gooyiisa wey waa haybadiisay ka mid tahay waa dresskiisay ka mid tahay nin waliba qori waa haystaa rasaastuna meel walba dadkuna dee lacagta waa haystaa bal soo gadanaya xataa wixii aan la haysan xoolo dirqin lama waayo soomaalidu tirahda anigu markaa 12 saacadood dambe maalintaa mudaharaadka 11 August markii dadka sidaa loo laayay waxaan dhihi lahaa mudaharaadkana sii wada laakiin tomorrow sidaynu mudaharaadayna shalay uma mudaharaadayno 10 qofba waa in qori sitaa dhex socda taa macnaheedu waxa weeye 100 qof ee mudaharaadaya 10 nin baa dhex soconaya qori sita xabad marka lagu soo rido uu ka jawaabaya 10 nin baa u jawaabaya simple muuse marka awoodiisa isticmaalo maxaa dhacaya kuwa xabadda xagga ka soo ridayay booliiska militariga dhinacan ay soo marayaan qaar badan oo ka mid xogaa baa dhimanaya dadka waxa lagu qasban yahay in la isu yimaado is gone aniga isagu isku mid baan laba hogaamiyaan nahay Soomaa simple step Somaliland oo baa taa ka sameeyay sida u dhanta but laakiin sidaa may sameyn xusbiyada mucaaradka that's why baa loo leeyahay ciro waa najras because waxa weeye waa hogaamiye u dhimriyay dalkiisa iyo dadkiisa way caruurtaas iyo dumarka iyo dadka masaakiinta iyo ganacsatada iyo waxa ay tabcadeen iyo daaraha ay dhisteen iyo ganacsigooda noloshooda ay samaysteen diimeeyay ma doonayo inuu dabgeliyo wuxuu ka duulay because nin bay hayaan marka macnaheedu waxa weeye nin jilicsan maaha waa xilkas wey waa qof xilkasa oo islaamnimo leh oo damiirkiisu nool yahay oo wadaniyad leh oo dalkiisu jecel oo islaam wey waa qof xishoonaya sida General Shabeelo wadan wadiga ka soo baxay godkii coach cadde sida General waa salaamay ayradoo ku salaamaya war suldaanka aad u salaamaya walaal uu coach cadde god baa waa dhul banaan oo cidla ah oo sulux ah adartaad baan ku salaamaya adiga iyo Cabdullaahi Arraad baan idin salaamaya xogaa baan idin dhageysanayay marka bal wixii aan ku dari karaan ku daray horta waa mid